waxay ahayd maalin walaalo Soomaaliyeed oo 32 sano kala maqnaa ay dib u midoobeen. markaad aragto ruux ay indhihiisa ka muuqato ilin waxa ugu horeeya kugu soo dhacaya ayaa ah in uu qofkaasi dhibaato dareemayo, balse waxa jira marxalado ka duwan midaas. farxadda qaarkeed waa mid aadan ilinta cishan karin, sida walaalahan oo kale. waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo ay ummadda Soomaaliyeed ka dhaxleen burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya. dhibaatooyinkaas oo ah baaba iyo dhimasho aan tiro lahayn, iyo in badan oo kala dhumay ilaa haddana aan meel isku sheegin nolol iyo geeri midna. maanta taariikhdu ku beegan tahay 5 bisha koobaad sanadka cusub 2022 waxay maalin khaas ah u tahay dhammaan reer Cabdullaahi Guuleed oo ka mid ah qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo kala fogeeyay burburkii dawladda dhexe Soomaaliyeed. lagana yaabo inay jiraan kuwa badan oo dunidan ballaaran ku wada nool haddana aan aqoon isu lahayn. Libaax Cabdullaahi Guuleed muddo 32 sano ah ma uusan arag familkiisa, waxaana sabab u ahaa qixii iyo farxadkii ummadda Soomaaliyeed ku dhacay waqtigii burburkii dawladda dhexe. waxa uu ahaa caruur waxa uu la qaxay qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo naftooda ula baxsaday dalka Kenya, kadibna ay halkaas ku qaabishay hay'adda UNHCR oo ah hay'adda qaxootiga adduunka. kadib muddo aan fogeyn ay reerkiisu ogaadeen in uu ku sugan yahay halkaas. Nimco Cabdullaahi Guuleed waxay Dhobley kaga hortimid walaalkeed oo safar u soo galay sidii dib ugu arki lahaa qoyskiisii. ugu dambeyn nabad ayay ku kulmeen. haddaba waa kuwana iyaga oo bulshada Soomaaliyeed la qaybsanaya farxaddaas. ka dhacaya hoolka Hotel Dhobley, halkaas oo mas'uuliyiin Jubbaland ah iyo marti sharaf qaali ay ku soo dhaweynayaan walaalo muddo ka badan 30 sano kala maqnaa oo saaka dib u midoobay oo kulan ayaga oo nabad qaba caafimaad qaba Ilaahay uu ku kulmiyay deegaanka Dhobley. Libaax Cabdullaahi Guuleed iyo Nuura Cabdullaahi Guuleed oo muddada 30 sano ah. Cabdullaahi Guuleed oo in adeerka iyo walaashii oo 30 sano kala maqnaa oo saaka ku kulmay Dhobley. maanta waxaan qoraxda u taagnay aniga iyo sida xildhibaanka kaleeto Maxamuud oo kale Khatro oo kale Nimco waxaan u taagnay Nimco walaashii waxaan u taagnay inaan soo dhaweyno Libaax walaalaha 30 sano kala maqnaa ee saaka Ilaahay iyaga oo nabad qaba dib isugu soo celiyay. farxadaas aan la faraxsanahay annaguna muddo dheer baan saaka soo dhaweynta Libaax yaanu u diyaarsanayn. Ilaahay nabad buu noogu keenay. waxaan leenahay farxadiina farxadanada ah. waxaan u mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha soo dhaweyntan dhammaantood sida taliyaha amniga iyo xildhibaanka iyo Khadra iyo labadan walaalaha dhammaantiin iyo Cabdinuur dhammaan waan mutaqaanaa waan u mahadcelinayaa. gabadhaan waa yaraantii hooyaday muddo 31 sano ama 30 saaka isugu kaya horeysa. taasuna waxay ku dhacday colaadii Soomaali nin walba meel ka tuurtay. aad baan ugu faraxsanahay maanta in aan helay walaashay. aad sida ay soo dhaweyseen walaashay isugu kana kenteen waxaan ku mahadcelinayaa. waana mahadsantihiin. muddo badan oo 30 sano aanan arkin maqalla iyo telefoonka iyo aaladaas mooyaane aan wali arkin banaanta. alxamdulillaah rabbil caalamiin. ilaahay baa ina nabad keenay. waana faraxsanahay. aad baan u faraxsanahay walaalahayga ila soo dhaweeyay. aad baan faraxsanahay aniga. aadna waa u mahadsantihiin dhammaantiin. ilaahayga isu kaana keenay baan hadda iskale igu kulmiyay maanta magaalada deegaanka Dhobley. farxadeeda lama soo koobi karo. dhammaantiin waan idin mahadcelinayaa. walaalkeena aad baan u soo dhaweynayaa Dhobley ka soo dhaweey. nimco su'aal yar haddaan waan lahayn anigu markii la soo qaxay qixiisa oo Soomaaliya ayaa isu kaan dambeysay. waana yaraa oo qof martay xilliga garanaysa maana aan telefoon iyo aalad midna ma ayna jirin. waxaan isku laakiin aragti maanta ayaa hadda iga soo horbaxo waan garan lahaa. Cabdinuur Xayi Xaashi, Jubbaland TV, Dhobley.